aad baad u mahadsantahay Cabdiraxmaan Xuseen Wadani. munaasabadan loogu dabaaldegayay 59 guradii ka soo wareegatay 26 Juun oo ku beegan markii gobolada waqooyi ee Soomaaliya ay xornimada ka qaateen gumeystihii Ingiriiska ahna markii ugu horeysay ee calan Soomaaliyeed oo xura laga taago dhul Soomaaliyeed oo xura ayaa lagu qabtay xalay Beledweyne. dhicitaanka munaasabadan waxaa si aad u hareeyay xiisada siyaasadeed ee weli ka taagan Beledweyne kamana aysan soo qayb galin madaxweynaha Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare wafdigii dowladda federaalka ee Soomaaliya ka socday xildhibaano iyo wasiirro Hirshabelle ka tirsan iyo mas'uuliyiin kale oo dhammaantood xilligan Beledweyne ku sugan. munaasabadii xalay dhacday waxaa soo qaban qaabiyay taliska guutada shanaad ee ciidanka xoogga dalka waxaana ka qayb galay siyaasiyiin saraakiil amisom ka tirsan iyo ururada bulshada rayidka. taliyaha guutada shanaad ee ciidanka xoogga dalka ee gobolka Hiiraan ka howlgala Korneyl Faarax Cali Waasuga Faarax Kooshin xeer ilaaliye ku-xigeenka maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya Dhamme Maxamed Cabdulqaadir Maxamed iyo saraakiil kale oo amisom Djibouti ka tirsan oo hadlay ayaa hambalyo u diray shacabka Soomaaliyeed. waxaa rabay 26 Juun 1960 waxay ahayd mar xasuus ay ku leedahay ama dhacda ummadda Soomaaliyeed wax badan ka bedeshay maskaxdooda iyo iimaankooda. 1960 habeenimo ay saacadu ahayd 6 ama 12 habeenimo ayaa calan jamhuuriyadda Soomaaliya midabkiisu u yahay buluug dhaxdana ay ku astaasantahay xidigta shanta gees leh ayaa waxa laga taagay magaalada Hargeysa gaar ahaan beerta xorriyadda. Soomaalidu waxay dhaqan u lahayd inay la dagaalanto gumeysiga waana dad ku firfircoon mar walba la dagaalanka gumeysiga. sidaas daraadeed nuglaashada Soomaalida u nugusha inay u diyaarsan tahay inay la dagaalanto gumeysiyaashuna waxay sabab u ahayd inay iska kiciyaan cadowgoodii oo xilligaas gumeysuhu ay gobolada waqooyina ay gumeysan jireen Ingiriiska koonfurtana oo Talyaanigu gumeysan jireen. maalmo kadib markii xorriyadda heshay gobolada waqooyi waxa koodii Luuliya isla bisha koodii qaatay xorriyadda gobolada koonfureed. walaalaha gobolada waqooyi waxay sabab u noqdeen inay Soomaaliya midoodo hal midna ay noqoto. calanka buluugu waa qaali caalamka waa ku qaali haddii Afrikaanada dhex gashay dad Afrikaan badan ninka waa Afrikaan baa loo oran laakiin waa lagu soo dhawaani waa lagu hubin waa Guinea waa buku martay waa Camerooniya waa Soomaali baa lagu oran markaa laakiin caalamku hadduu 100 mitir joogo waa caalamka Soomaaliya loo oran. waxaan leenahay munaasabadan 26 Juun hambaliyo soo dhawaada inaan ilaashano dardaarana igata qof kasta oo Soomaaliyeed inuu ilaashado calankaas jooga buluuga waajibay noqoto. gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan Cabdifitaax Xasan Afrax oo hambaliyada uu u diray shacabka Soomaaliyeed dabadeed hadlay waxa uu sheegay in wax laga xumaado ay tahay in xiisada siyaasadeed ee ka taagan wali ay saameyn ku yeelato munaasabadii xuska 26 Juun ee Beledweyne ka dhici lahayd. maalinta hadda oo munaasabadan la dhigay wuxuu gobolkani ku jiraa dib aad u badan oo xanuun badan oo doonayo caawa inaan ka hadlo kaasi oo aanu u qalmin gobolka magaciisa iyo bulshada intaba aanu qalmin. waxaan u maleynayaa halkan waxa ku sugan madax wixii gobolkani lahaa ha ahaadaan siyaasiyiin ku ugu sasaray ha ahaadaan dhaqan ha ahaadaan diinta culimada diinta ha ahaadaan dhalinyaro ha ahaadaan haween cid ka maqan ma jirto. waxa ka jira oo ay xalli waayaan macnaheedu waxay tahay waxay yihiin malaha ay noqonaysaa waa in la xalliyaa waa qasab waaye wadani qarani ah oo maartay sheeg oo waajib diini ah waana ceeb waxyaabaha qaarkood. waxaan taa dadka ku baraarujinayaa aniguna aan ka mid ahay oo ka qayb qaadanay ay tahay in la dhameeyo wax alaalo wixii dhibaato oo halkan ka jira si ay anugu qayb qaadano dhisidda qaranka Soomaaliyeed oo booska nooga banaan aan u buuxino. ma aha inaan isku haysano wax aan micno lahayn oo hadda maanta haddii hal fasiro la yiraahdo aan qof micno u yeeli karaa uusan jirin. xalka bini aadan baan nahay ilaahay baa khaliif ardana nooga dhigay gaar ahaan Soomaaliya iyo geeyigan ayaa ilaahayna dejiyay. waa inaan awoodnaa inaan anagu aan dad nahay oon qaran nahay oon awoodi karno inaan wax kasta xalli karno.
maaha inaan mar kasta inta annagoo isku jirno cid naga maqanayna jirin inaan u baahano dad aan garaad iyo xoolo iyo maartay aan dheernahay wax kastaba inaan arrimaheena intaan u bandhigno caloosheenna aan tusno aan maartay gacmaha u hoorsanno si ay u xalliyaan mana xalli karayaan ugu dambeyn cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka ayaa abbaara 12 saqdii dhexe markii ay Afrikada Bari ku beegneed calanka ka taagay guriga martida ee munaasabadda ay xalay ka dhacday qaabka looga dabaaldegay munaasabadda 26 Juun Hiiraan qaab la mid ah waxaa looga dabaaldegay gobolka Galgaduud ee dhaca bartamaha Soomaaliya gaar ahaan magaalada Dhuusamareeb haddaba aan idinku duubo warbixinta warkaasi wariyaha Kalsan TV Cabdi Jamaal Macalin Axmed